danaha Israa'iil ayaana qasabtay in xitaa wasiiradeena arrimaha dibadda haweeneyda lagu magacaabo Tisbi Lifini ay qirato inay galmo la sameysay tiro siyaasiyiin ah oo daafaha caalamka ku kala nool. guurka jihaadiga ah waa fatwo hore oo ay dadyowga yuhuuddu alifeen si ay ugu hiiliyaan askarta Israa'iil ulana wareegaan dhulka reer Falastiin. waxaana arrinta lagu tiriyaa hubka ugu khatarsan ee Israa'iil fuliso si ay u dejiso qorshaheeda ama ay u hesho xogaha uguna hanjabto inay soo bandhigi doonto ceebahooda kuwa ku dhaca dabinka dumarka yuhuudda haddii aysan yeelin ama u hoggaansamin waxa Israa'iil ka codsato. ereygan asal ahaan sida la sheegay yuhuuddu waxay ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee faafiya waxa loogu yeedho guurka jihaadiga ah ee haweenka yuhuudda ah. sidaas daraaddeed fikirka iyo hirgelinta mashruucan waxa uu asal ahaan ka yimid sahnuuniyadda si ay u gaadhaan danahooda inay basaasaan cidda ay jecel yihiin oo ay siyaasiyiintu ka mid yihiin iyo weliba inay helaan xogta ay rabaan kadib marka laga duubo muuqaallo kadibna loogu hanjabo si ay danahooda ugu fushaan iyagoo dhinaca kalena kashifaya ciddii u hoggaansami weyda rabitaankooda. kooxda sahnuuniyaddu waxay inta badan soo saaraan qorshayaal hadafkooda ku tirsan yahay sidii loo samayn lahaa fatwooyin u fasaxaya haweenka yuhuudda inay dhaqamada anshaxa daran la sameeyaan dadka aan yuhuudda ahayn ee u badan dadka carabta ah iyaga oo arrintaasi uga dhigaya haweenka sameeya ficiladaasi inay tahay arrin diiniya oo yuhuudda agtooda sharafka leh iyo weliba mid la dhihi karo halgan qofkaasi u gelayo yuhuudnimadiisa taasoo ah inuu guulaystay awoodna uu helaya dalkiisu xoogaha dalalka shisheeya ama dalalka carabtaba. bishii Maarch 2016 shabakadda Voice of Israel ayaa daaha ka qaaday hubka ugu halista badan ee ay adeegsadaan Mossad kaasi oo ah jirka haweeneyda yuhuudda ah waxayna jirkeeda u arkaan inuu yahay aaladda ugu muhiimsan ee lagu gaadho hadafka sirdoonka Mossad ee Israa'iil iyagoo u maraya fatwooyin ay ku banaynayaan arrinkaasi. waxayna ku booriyaan haweenkooda inay jirkooda ka ganacsadaan iyo weliba arrimo kale oo ka baxsan akhlaaqda iyagoo dhinaca kalena siinaya xorriyadda buuxda oo ay jirkooda uga ganacsan karaan markasta oo ay dabcaan. waxa uu baadariga reer Israa'iil ee Richoron uu hadda ka hor yiri dadkeenu waa muxaafid waana dad diinta yuhuudda ku adag laakiin waa inaan dhiirigelinaa fasahaadka iyo weliba dhaqamada xun ee bulshooyinka aan yuhuudda ahayn ay ku dhaqmaan taasoo faafin doonta xumaanta isla markaana wiiqi doonta xiriirka adag ee soo jireenka ah taasoo loo arko waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee dadyoogeenu ku soo caanamaaleen. waxayna tani noo sahlaysaa ama noo fududayn kartaa inaan xakamayno oo aan u hagno bulshadeena sidii aanu doonayno. danaha Israa'iil ayaana qasabtay in xitaa wasiiradeena arrimaha dibadda haweeneyda lagu magacaabo Tisbi Lifini ay qirato inay galmo la sameysay tiro siyaasiyiin ah oo daafaha caalamka ku kala nool. balse qirashadeeda waxay dharbaaxo kulul ku noqotay siyaasiyiin badan oo carbeed waxaana ugu caansan oo ka mid ah raggaasi laba hogaamiye oo sare oo ka tirsan dowladda Falastiiniyiinta kuwaasi oo kala ahaa Saib Erekat oo ah gudoomiyihii guddida wadaxaajoodka iyo Yaasir Cabdiraab oo ahaa xogayaha guddiga fulinta ee ururka xoreynta kuwaasi oo ay tiri wasiiradani haddii ay dhacdo inay inkiraan waxaan faafin doonaa cajalad muuqaal ah oo muujinaya iyaga oo gebi ahaanba dharkii laga siibay oo qaawan. Lifni xitaa waxay ku hanjabtay inay faafin doonto cajaladaha muuqaalka ah oo ay soo bandhigi doonto shakhsiyaadkan haddii aysan u fulin waxa ay ka codsatay oo u adeegaya danaha iyo jiritaanka reer Israa'iil. waxaa kaloo bishii Sebtembar sanadii 2014 gudaha daanta galbeed laga helay koox yuhuud ah iyagoo ka shaqaynaya waxa loogu yeedho jihaadka diiniga ah una arkay arrintan jidka kaliya ee badbaadada u ah dadyowga reer Israa'iil maadaama ay soo bixeen fatwooyin badan oo yuhuudda uga hadashay. siyaasiyiinta yuhuudda ayaa ku guulaystay inay dhiirigeliyaan damaca haweenka yuhuudda ah iyo weliba inay ku qanciyaan waxa ay samaynayso inaysan ceeb iyo xishood toon ah lahayn taasoo dhaxashay inay si isxilqaan ah ay u qabtaan ama uga mid noqdaan howlgallada ciidamada Israa'iil wado. waxaadna arkaysaa kumanaan haween ah oo codsanaya inay la shaqeeyaan sirdoonka Mossad sababtoo ah waxaa haweenkaas lagu qanciyey in falkan ay qabanayaan ay tahay arrin cibaado ah ama badbaadinta Israa'iil. hase yeeshee ciidanka Israa'iil ayaa ku tilmaamay dumarkan geesiyaal awaalmarina ay ku helayaan howlaha ay qabtaan iyo weliba guulihii ay soo hooyeen oo ay ciidanka wax ku tareen arrintaasi sida dhacdayba markii Elisa Moagin loo magacaabay ku-xigeenka madaxa Mossad waana markii ugu horreysay oo qof dumar ah loo doorto xilkan tan iyo markii la aasaasay. kitaabka Talmud ee ay bedeleen yuhuuddu waxaa kale oo ku jira sheekooyin been abuur ah oo ka dhigaya haweenkan inay rumaystaan waxa loogu yeedho jihaadka guurka diiniga ah iyo weliba inay arrintani ka timi aasaas diimeed
taasoo ku tusinaysa in nuxurka ku jira waxa loogu sheego jihaadka guurka ah ay asal ahaan ka timid bulshada yuhuudda kuwa buunbuuniyeyna ay iyagu yihiin kadibna inta ay iska soo riixeen u nisbeeyeen dadyowga islaamka ah iyadoo la doonaya in la qaloociyo diinteena islaamka ah ee suuban iyo weliba guud ahaan dhaqanka dadka carabtu ay leeyihiin waa barnaamijkeeni xulashada dunida oo aad kala socoteen warbaahinta ballaaran ee Horfadhi Media.